بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan salaamaynaa dhammaan ummadeena Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Soo dhawaada channelka Samafala Nasteexo meel kasta aad joogtaan. maanta waxay barnaamijkeenu yahay nafaqe naftaada adoon ku nafaqeynaya waxyaabaha natuurka oo haddii ilaahay ku idmahayo aan calool kaa soo baxayn, aan jir balaqbalaqle iyo baruur kaa soo baxayn, aad caafimaad iyo fudayd ka helayso, aada gaajoonayn. halkan waxaa la dhahaa qudaarta cagaaran waa babaay, liinta kaleeto dhiigga siyaadisa, canab iyo qaraha cad weeyaan. waxaas qara cad waaye. halkaas waa canab. waxaa yaala cananaas baan dhihi lahaa, cananaas. halkan waxaa yaala alaabtan guurka la dhahaa cagaarka. waxaa taala liinta yaroo la fiiqdo, waxaa taala toon, waxaa taala sanjabiisha qoyan, waxaa taala liin, waxaa taala barbarooni, waxaa taala bahalkii maxay ahayd toy, waa kaarooto. kaarootada saartaa u samaysan kartaa. dabcan dadku waxay yaqaan babayga in la jeexjeexo. halkaas waxaa yaala halkaa waxaa yaala halkan waa biyihii caddaa oo liini ku dhex jirto. biyaha waxaa waaye always inaad cabto weeyaan. ugu yaraan 3 litir ama litir maalinta inaad cabto weeye. halkaa waxaa yaala waxaa weeye olyolii baa la yidhaha. bahashaas waa olyada oo aan lahayn dufanka badan lahayn oo caafimaadka aad ka helayso. olyolii baa la dhahaa. waxaa weeyaan waa Soomaaliya dadka jooga macsarada weeyaan. halkan laakiin wadamadan dibadaha olyolibadaasaad cabaysaa. alaabtan bakeeriga ku jirta alaabkaad doonaysa wax badan maahan. horta waxaan in sheegahayaa kaarootada bahasha la yiraahdo waxay u fiican tahay indhaha ayay u fiican tahay. dhowr nooc baan u sameeyaa anugu. mar waxaan ku darsadaa sida waxaan u samaystaa cuntadaan ku cunaa sida ansalaatadii waxaasaan u samaystaa. maanta weliba alaab baa ka maqan meesha. ansalaataa ka maqan, waxaa ka maqan moos, waxaa ka maqan tufaax. laakiin don't worry, anigu intaan baan jeclahay. qof walba waxa uu jecel yahay soo gataa. inta aan jeclahan soo gatay maantay. waxaan jeclahay babaayga, liintaa kale, canabka, qaraha lagama waayo gurigayga. markasta lagama waayo. intaasoo qudaar ayaan jeclahay. dadku waxay yiraahdaan alxamdulilah rabbil caalamiin. ummadda taqaana ma dadka yaqaana waxay yiraahdaan Nasteexa maxaa samaysay sanad kasta wax soo qorxoonaanaysa maxaa ku dhacay? alxamdulilah rabbil caalamiin. marka waxyaabaha aan sameeyaa idin soo bandhigayaa. kaarootadii iyadoo shiidan waa taasa cabitaan ahaan baan u sameeyey. inta koobkaas ku jirtaana waxaa weeye gufarkii soo haray oo markii la shiido ma ogta waxay u kala baxaysaa. waad miiraysaa. markaad miirto intii soo hartay weeye intaas. waxba daadin maysid. waxaad u cunaysaa sida qudaarta u cunaysaa. in yaroo sonkor aad ma ku dul shubanaysaa. sonkortana iska ilaalisha. sonkorta dhaqaatiirta sonkorta aad bay u diideen. waxyaabaha dufan kale aad bay u diideen. Soomaalida waad ogtiin kastrol baa ku dhacaya, sonkarow baa ku dhacaya, dhiikar baa ku dhacaya. waxyaabaha laga qaadana ogaada waa hilibka baruurta leh iyo xataa maraqa. aniga dhakhtarkaygii ayaa aad ila taliyay. maanta dhan waxaad arkaysaa gabar Soomaaliyeed burdubaysa oo hilib karinaysa oo maraq shubaysa oo waxyaabahaas. marka dabcan hilibka waa loo baahan yahay wiigi mar ama hal marna qajac ka siiso. laakiin alaabta aan ku qurxinaysa oon caloosha kaa soo saarayn oo cimrigaaga xataa wax kuugu alxamdulilah cimrigaaga xataa kugu dheeraynaysa. waayo haddaad waxyaabo ku duqowga waxyaabo badan baa jira oo qofka hilibka iyo badan iyo baruurta iyo subaga iyo waxaas dadka way dedejiyaan. alaabtan marka waa alaabtii markaan miiray
markaan miiray kaarootada aan biyahaas ka soo saaray biyahaas markaan ka soo saaray waa gufarkii soo haray weeyaan sideedaad ku cunaysaa qaadadii waa ku dhex jirta halkan waxaa yaala cambe cambihii waa kaas halkaasuu ku jiray awal meeshaasuu ku dhex jiray cambihii halkaas cambe weeya waxaa ku jiraa cambe weeyaan dhinaca kalena waa kala wareegi doonaa toonta waad garanaysaa toonta waa dawo toonta iyo sanjabiishu waa dawo waxa weeye iyaga biyahaad ku dhex ridanaysaa biyahaad ku cabaysaa cuntadaad ku daranaysaa siiba sanjabiisha maxay tahay qoyan iyo toontu waa caafimaad waxa weeye qudaaraha ugu fiican weeye biyahaad ku dhex ridanaysaa biyahaas iska cabaysaa gooryaan kuma imaanayo maxay ahayd caashis iyo culays badan ma dareemaysid baruurta way shiishaa caloosha way la dirirtaa qarihii caadiga ahaa aan naqiinay cambihii oo aan jeexjeexay iyo cambihii cad geedka qarihii caddaa isagana aan jeexjeexay halkan waxaa noo yaala biyihii oo liin lagu dhex riday liintaas waa aad bay dawo u tahay hadda ka horna waan sheegay haddaad inta biyo yar kululaysato subaxii 3 bakeeri 2 bakeeri biyo inta kululaysato ama bakeeri biyo kululaysato aad jab liina ku dhex shubato intaada wax cunin waxa waaye alxamdulillaah waa caloosh way ku baxaysaa caafimaad baad ka helaysaa insha Allah caafimaadka Ilaahay waa baxshay laakiin dadaalkuna wuu jiraa waa la dadaalaa darashaday wataasa alxamdulillaah darashadayda jikada waa jikadayda miiskayga jikada waxaan maanta duubayaa waa daaqadii jikada waa miiskii qadada halkan waxaa yaalo kaleeto maxay ahayd waxaa yaala sorry yarbaan mara yarbaa lagu hayga degtay halkan waxaa yaala waa malab kaas waa malabka asliga waaye malabka asliga haddaad cuntada ku darsato meeshaad rootiga wax kale uga darsanayso rooti madow baa horta waxay cuntada madow laftigeeda Soomaaliya dhigin laakiin marka la soo dhigi doonaa cuntada madow oo rootiga madow baastada madow mar baan soo dhigay ayaguna caafimaadka way u fiican yihiin calool dadka kama soo bixiyaan cayil badan marka kastrol kugu ridayaan halkan marka waxa taala malabkaas anigu markasta shaahan ku darsadaa rootigan ku dul shubtaa wixii aan rabaan ku dul shubtaa waxa waaye waa olioliibadaas waxaad ku darsan kartaa wax kasta laftigeeda siiba digirta markaad karsato digirtaad ku darsanaysaa halkan waxaa taala timir aad iyo aad baan timirta u jeclahay timirta waliba waxaan ku daray olioliibadii baan ku shubay markaa timirta saa olioliibada inta ugu shubato aad miiskaaga iskaga kaa saaranto markasta afka ku shubato timirtan waxaa laga helaa calciumka laga helaa waxay dawo u tahay ama ay kala furfurtaa seedaha calcium baa laga helaa walow macaan ay leedahay laakiin macaankeedu waa mid dawo la socoto ayaday malabkaba laakiin la iskama badiyo wax kasta haddaad iska badiso dee dhibkeeda ay leedahay iska badiso lama rabo taas waa cananaaska asagana waa la jeexjeex aad baan u jeclaa asagana cuntadan ku darsadaa sidiisaan u cunaa aad iyo aad baan uga helaa babayga aad baan u jeclaa xataa waan ismariyaa markii aan inta ka cuno la cuni karaan ka cuno ayaan intaan meel ku riqdo ayaan ismariyaa waxaad kaloo ismarin kartaa liinta xataa waad shiidan kartaa waa ismarin kartaa mar baa idin soo bandhigaya kaasna quruxda korka mar baa idin soo bandhigaya hadda maanta kuma darahayo laakiin sidoo caafimaad u yahay baan idin kormarahayaa marka runtii waa nasteexo idin dhahaysa maaragta nafaqee naftaada saaxiibayaal siiba gabdhaha caruuraha haysta uurar kale caruurta waa intku maxaa go'ay hadaad cunto naaska ka nuugayaan ilmuhu maxay ahayd hadaad uur leedahay stresska iyo dhibaatada iyo maaragtay way ka yaraanayaan miiskaaga iska saaro lacag badan maahan siiba Soomaaliya xataa maraan tagay aad bar qudaartu raqiis u ahay dadkina Soomaaliya jooga runtii kama faa'iideysataan waxa Ilaahay idin siiyay waliba ecologiska la dhahaa qudaar waxa haysataan fresh ah soo gata guryihiina iska dhigta miiska sida ugu sharaxda wax problema male wax dhibaato male mana gaajoonaysid haddaad maanta dhan cunaysid mana gaajoonaysid mana dhargaysid so markaad hadda saad u gaajoon tahay saxan weyn oo bariis iyo hilib dig ka siiso waxa dhici karta intaad dhiragto inay xanuun ku yimaado
laakiin bahalkan waxaa waaye maanta oo dhan baad cunaysaa mana dhargaysid mana gaajoonaysid dabcan cuntada waa iyada riixda waa la cunaa laakiin cuntada aad in loo cunaa ma fiicna xataa markaad cuntada cunayso saxan yar oon saxamada waaweyn ahayn haddaad intaad cunto dhinac moos ka saarato dhinac qudaar kale ka saarato ood maaragtay xoogaa caloosha aad u buuxin wixii ka dambeeyna aad qudaartaadaas iska cunto marka waa nasteexo idin dhahaysa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا السلام ميل كستو أشوفتها وأنا استيحوا عند باي.